wararka ka imaanaya deegaanka la yiraahdo Cilmacaan oo u dhaxeeya magaalooyinka Jowhar iyo Jalalaqsi oo ka kala tirsan gobolada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe isla markaana saaran wadada laamiga ah ayaa in halkaas uu ka socdo dagaal u dhaxeeya ciidamada deegaanka ee loo yaqaan macawisleyda iyo xubno ka tirsan dagaalamayaasha ururka Al-Shabaab dagaalkan ayaa waxa uu ka dambeeyay kadib markii ciidamada macawisleyda ay shalay howlgallo kaliya dambe ay ka sameeyeen wadada xiriirisa degmooyinka Jalalaqsi iyo magaalada Jowhar ee labada gobol ee Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe ay kula wareegeen deegaanka Cilmacaan halkaas oo la sheegay in saak waa berigii hore ay weerar ku soo qaadeen xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab goobjoogayaal ayaa waxa ay sheegayaan in dagaalka oo saakay xoogiisa bilowday oo si toos ah kaga socda deegaanka Cilmacaan ee gobolka Hiiraan isla markaana ku yaala laamiga xiriiriya degmooyinka Jalalaqsi iyo magaalada Jowhar waxaana dadka deegaanka ay sheegayaan inay maqlayaan dhawqa rasaasta ay isku adeegsanayaan labada dhinac mid ka mid ah horjoogayaasha ciidamada macawisleyda waxa uu sheegay inay ka go'an tahay in ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya iyagoo kaashanaya inay isku furaan wadada xiriirisa degmada Jalalaqsi iyo magaalada Jowhar halkaas oo muddo 10 sano ah ay markaasi u go'doonsan tahay xubno ka tirsan dagaalamayaasha ururka Al-Shabaab dhinaca kale ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo dadka deegaanka ayaa dhaqaaqa ciidan iyo howlgallo waxa ay ka bilaabeen deegaano hoostaga degmada Buulo Burde ee gobolka Hiiraan maalin ka hor deegaanka Jaceewo oo hoos tagta degmada Buulo Burde dhanka galbeedna kaga beegan 25 kilomitir waxaa ka dhacay dagaal qaatay in ka badan 10 saacadood kaas oo u dhaxeeyay ciidamada xoogga dalka dadka deegaanka iyo Al-Shabaab waxaana dagaalkaasi la sheegay in qasaare xoogga lagu gaarsiiyay xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab isla markaana deegaanka Jaceewo ay ciidamada xoogga dalka iyo kuwa dib u xiraanta deegaanada gobolka Hiiraan ay si toos ah ula wareegeen waxaana halkaasi gaaray xildhibaano ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya kuwaas oo ku biiray dagaalka ka dhanka ah ururka Al-Shabaab xildhibaan Maxamed Cabduqaadir iyo xildhibaan Maxamed Ibraahim Macalimo oo labadaba ka tirsan xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya oo ku sugan furmaha dagaalka ee deegaanka Jaceewo waxa ay sheegeen in xilliga wixii ka dambeeya ay si weyn kaga qayb qaadan doonaan dagaalka ka dhanka ah ururka Al-Shabaab waxaana guud ahaan ay ugu baaqeen dadka ku nool gobolka Hiiraan ee dhankooda qayb ka noqdaan dagaalkaasi waxaan ku sugannahay aaga Jaceewo oo runtii dagaal xoog leh lagu qaaday khawaarijtii runtii meelo yar oo pockets ay ku dhuumanayaan oo maaragtay godada laakiin si xoog leh ayaa looga saaray madaafiicna waa lagu garaacay runtii waxaan aad ugu mahadcelinaynaa niyadda iyo xoogga uu keenay gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeyte oo maaragtay isagana yimid isla markiiba isagoo aan nasan hore ka aaday furunta khawaarijtana waxaa maaragtay la samayn doonaa in la baabi'iyo gabi ahaanba Hiiraan insha Allah hadduu Ilaahay yiraahdo oo hawshii ka dhanka ahayd argagixisadu way socotaa nimankaas qof ay u aabayeelayaan oo Soomaali ama jiro qof sidaad u jeedaan maanta waxaan joognaa goobtii lagu dagaalamay cadowgina Ilaahay subxaanahu wa ta'aala garabkooda ayuu ka baxay sidoo awalba ugu bixi jiray dhimashada iyo dhaawaca ay halkan kala kulmeena waa mid laga diiwaan gelin doona mataqaanaa taariikhda Soomaaliyeed xaqiiqdii mucjisooyin dhowr ah ayaa halka kani ku aragnay oo aan cadowga ciidanka qalabka sida iyo dadka deegaanka ay ugu dhigan taasoo koow ee ka tahay inay shalay isku daygii ay sameeyeen waxay filinayeen waxaysan ahayn ay kala kulmeen deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolka Hiiraan ayaa bixi la soo dhaafay waxaa markaasi ka socday dagaalo aan joogsi lahayn kuwaas oo u dhaxeeyay ciidamada xoogga iyo ciidamada la magac baxay dib u xiraanta gobolka Hiiraan waxaana suurto gashay in deegaano badan ee ciidamada wadajir kala wareegaan ururka Al-Shabaab iyadoo howlgallada intooda badan oo hogaaminayo gudoomiyaha maamulka gobolka Hiiraan Cali Jeyte Cismaan bishaaro shirkadda isgaarsiinta Somtel waxay ugu bishaaraynaysaa macaamiisheeda sharafta leh inay u soo kordhisay xirmooyinka adeega Dhamays Plus waa xirmooyin mobile internet unlimited oo aad u qiimo jaban kuwaas oo shirkaddu ay ugu talagashay macaamiisha shirkadda isgaarsiinta Somtel macaamil ku shuba $5 oo hel data internet iyo ku hadal aan ka dhamaanaynin muddo 7 ah sidoo kale macaamil ku shuba $15 oo hel data internet iyo ku hadal aan ka dhamaanaynin muddo bil ah macaamil ku dooro xirmooyinka adeega Dhamays Plus xawaare sare oo aan xaddi lahayn
macamil uga shubo xirmooyinka adeega dhamays balaas adeega idahab kood nambarka xidig 104 gees adeega idahab reseller kood nambarka xidig 304 gees ugu dambeyntii waxaad bedelan kartaa airtime-ka kuugu jira adigoo garaacaya kood nambarka xidig 204 gees macamil xirmooyinka adeega dhamays balaas nafsadaada ku soor